بسم الله الرحمن الرحيم. كلنتو عنو وناكسن داوديال meel kasto idil hantiin baad naga daawanaysaan. waa barnaamijkeena suugaanta oo si toos ah maanta idinka imaanaya studio-yaga Royal 24 ee bariga Sacuudi Arabiya gaar ahaan barigiisa Dammam. waxaan idin daadiyay anigoo ah Awil Cismaan Jaamac Awil Cagaare. balse maanta suugaanteennii hore waxbaad moodaa inay ka yara duwan tahay. hore ayaa loo soo qaadan jiray فنانين هاسي أبوان هاسي سميي بس مانتا وحن سوق قادنا إننا هاس فنان قاضي بس وحن دورنا إنه نترجم هاس قف مركو سديسا بنامبا وهاس مقلوب معنا بدن بيوصلنا كرتا وحديعي كرتا قفكو إنه ده والله هاستني سياسة بك هالليسا هستن وحكي هالليسا جعيل هستن القف بسيطة وصوص عطاء أمهاجسا هستن المنط سوق هذا إنه وحاء هذا يفنان كن اللي هذا محمد بيكي هستن ومعنى بدنتها لكن سي إنه معناها جودهان مركز هست اللي جيسوتي واحد كتوس صو أيون سوق هذا إنه بدك الواحد تقف مركو هست سمينا يو أبوان هست سمينا يا iskama sameeynayo macnu ku keenaya waxba istusaya dareenkiisa waliba hadda abwaanintan jiray badan waxay badan yihiin in qof u yimaado abwaanka oo niyo abwaan hebel baan jeclahay ama hebel baan jeclahay magaciisuna waa ka magaciidu waa ka hees igu sameey dareenka iyaguna waa sida abwaankii dareenkii qofkii u yimi ayuu soo qaadanaya abwaanka laftigiisu waa bilaadan dareemaha soo mari kara dareenka abwaanka u yimi laftigiisu hees ka sameyn kara han noqoto nooc jacayl siyaasad cid ataaga cid magaranaysa amaana balse heesta waxa la yiraahdaa beengo lagu dilay ama nin gacan galay kullay aniga ayaan idila hadlaya macnaha u fahmay waliba dad badan ila fahmeen ayaa rabaa inaan u turjumo waan maqlay dad le arrimo kale ka hadlaysa jacayl ma balse anigoo awlahaan waxaan soo qaadanayaa daawadayaal badan oo heestan aad u daawaday ama u dhageystayba inay noqotay macnaheedu jacayl ama dareen balse tani dareen kan wuxuu ku tusayaa dumarka dumarku sideeda banaanba dee wadogtiin oo rag iyo dumarka ilaahay ma simin feer qaloocan baa laga sameeyey waxyaabo badan bay dumarku diideen waxaa dhici karta siyaabo badan dumarku iyagoo u khaldan inay ninka isku soo taagaan ama ninkeeda ha noqdo ama jacaylkeedii ha noqday kaba soo qaadbay inaad qabtidba gabadhan dembi bay gashay ama khalad bay samaysay guriga ay ku wada nooleydeen khaladkii waad u sheegtay waxaa dhici karaa inaad qoftii dumarka ahayd ay dafritaba hadda waa wadarkiisa iyadii waxay soo taagaysaa maya ifur warqadeedii si muranka badanaya base ninka wuxuu soo istaagayaa bal intii dee la kala tegi lahaa inuu iyadii dib u masuuxo وانقلت مركا هيستا برهرت بيج كوره إلى الدعوة معناه هنا كذا يعني اللي شيء بدونه هيستي بينجو لجود دي يفنان كنا محمد بيكي يمريه سدير أنا رجي سن ويا عاشق لقى وقلي قف كل قلي أحدي يومي سنة قبي أنا ويقى كونتا أحدي يومي سنة قبي أنا ويقى كونتا ويا عاشق لقى وقلي قف كل قلي أحدي يومي سنة قبي أنا ويقى كونتا أحدي يومي سنة قبي أنا ويقى كونتا يدنا قموية قلبي سقويو قول ما تعاشق مينو عاشقي كويايو وقف دنكيرو يا بش معقودكو
iyo beengo lagu daday iyo beengo lagu daday iyaduna kumooye qalbigiisa gooyo gurmad caashaq mayno caashaqii ku yaalayo waa goof dhankeeda iyo bishmaha guudkoo iyo beengo lagu daday iyo beengo lagu daday karna wali kamaan helin karna wali kamaan helin waxaan guud ka saartaa eedaanan wali gelin وانا رالي كليا فلنا لكلا كوي الله قرنا ولي كمان هلي قرنا ولي كمان هلي وحنقود كسارتا إذانا ولي كلين وانا رالي كليا فلنا لكلا كوي واتهاي داوديال waxaan maleynaa heesteen page hore fahamtiin macnaheedu daawateen aan idin kala qalqaabo si macnaha heesta ay u fahmeen balse dareenkan aan idin ku turjumayo maaha dareenka abwaanka maaha dareenka fanaanka boqolkiiba 8 waxaan u maleynaa inuu dareenka shacabka yahay dareenka shacabka iyo sidaan u fahmay iyo sida dad badan ila fahmeen aan idin kala qalqaado page hore heestu waxay ku leedahay hooy caashar kaliga ku galay qof kale kula galay ahdigiyo misana gabay anna way iga go'an tahay laba qof oo ballan wada galay oo fidayay ama lumiyayba ahdigii misana gooyay anigana way iga go'an tahay yani ninkii wuxuu ku adkaystay inuu isagu adkeeyo ahdigii labada qof ka dhaxeeyay bas qofkii kale isagu ama tuuray ama doonay inuu tuuraba okay iyaduna gun mooyee qalbigiisa gooyo guntu macna badan bay samaysaa laakiin inagu macnaha soo qaadanayno gunta halka ugu hooseysa baa la yiraahdaa iyaduna gun mooyee qalbigiisa gooyo yani markaynu macnayno qalbigiisa halka ugu hooseysa gooy mooyee gurmad caashaq muu noqon yani ma badbaadi kartaa ma noqon kartaa gurmad muu noqonaysaa jacaylka oo kadaa guntana aad qalbiga hoos ka jaraysid waayo qofkii isagii wuu adkeeyay jacaylkii ahdigii wuu adkeeyay adigina waa turtay ama waa bandumisada iyadiina gun mooyee qalbigiisa gooyo meel kalaba dan kalaba male qalbiga halka ugu hoos jar mooyee yani jacaylkan baa baabi'i mooyee caashaqii guyaal yani markaynu macnayno jacaylka yani muddadaba soo jiray ay labada qofood matalayeen waa goof dhankeeda yani wuu madhan yahay waxba ma haysaba iyo bishimaha guudkood iyo beengo lagu dilay jacaylkii halkaa muddada lagu matalayay caashaqii guyaal waa goof dhankeeda yani jacaylkii muddada la matalayay iyada xaggeeda waa madhan yahay iyo bishimaha guudkood jacaylkan ba waa ku jeclahay ba ay mar walba ninka ku celinaysaaba waa bishimahaba meel kalaba ma dhaafsinaba iyo beengo lagu dilay waa kelmad yaab leh beengo lagu dilay yani waa wax la soo qoray gebigeedu waa beena beengo lagu dilay yani waa beentii oo qarsoon oo qofkii uu moodayo inuu qofkii jecel yahay balse jacaylkeeda waa muxuu ahaa waa goof dhankeeda waaba madhan yahay iyo bishimaha guudkood jacaylkeedu halkanba ma dhaafsino hoosba uma sii jiro iyo beengo lagu dilay gebigeeduba waaba jacaylkaa beenta ku dadana hadalkeeduba bishimahan ma dhaafsina qalbi ma jiro halkanba ma dhaafsina marka waa beengo lagu dilay yani waa been lasoo dee lasoo saaray daaha ama go- ama lasoo qariyayba okay laakiin sheekadan heestan way macno badan tahay laakiin sidii aan u qaadanay ayaan idii dhamaystiraya pageka hore wuxuu ku leeyahay fanaanku ama abwaankuga gar weli kamaan helin waxaan garna kamaan helin khalad bay gashay waad u timi khaladkii baad u sheegtay wayba iswaashayba garna weligaba kama helin buu ku leeyahay
si kasta iyadu khaldan tahayba kama bihilinba mar walba akhirkii anaa qaladku dhan dakada saartaa garna weli kamaan helin waxaan guud ka saartaa eed aanan weli gelin waana raali geliyaa bal inaan la kala go-in kelmadda hadday laabta usii daaya wuxuu ku leeyay garna weli kamaan helin si kasta iyadu u khaldan tahayba gar weli kamaan helin guudka waxaan saartaa eed aanan weli gelin wax dambi aan anigu lahayn baan dhabarka saartaayo iyadii baan mar dambe dib u raali geliyaa waana raali geliyaayo bal inaan la kala go-in bal labada qof jacaylkooda ama guurkii ka dhexeeya ama wixii ka dhexeeyaba bal inaan la kala lumin ama la kala tegin baan ii adkeeyaa laabta usii daa markaad macnahan fahamtid waad fahmi kartaa dhibaatooyinka laakiin dumarku yays oranin ninkan heestan turjumaya idinku idiidan leeya laakiin heesa badan ayaa soo socda waan maalin walba ama wejiba hal mar ku eegi doono oo rag iyo dumar male hadda dhaliishan heestan aan usoo qaatay waxaad moodaaba dumarka inay ku badan tahay bas beejka kale iyo heestii beengo lagu diday beejka labaadna waa nin gacan galay ila daawada horta inkastoo ay gafadan tahay hadalkeedu godi yahay meel u goysa daran yahay gubashana u badan yahay meel u goya daran yahay gubashana u badan yahay inkastoo ay gafadan tahay hadalkeedu godi yahay meel u goya daran yahay gubashana u badan yahay meel u goya daran yahay gubashana u badan yahay ma jiraan waxaan galay ee waa igu garan ka galgalo xaqiiqada jacaylkii gabbood falay ilaa waa gumaysiye waxaan ahay nin gacan galay wacdaawa loogigay wacdaawa loogigay ma jiraan waxaan galay ee waa igu garan ka galgalo xaqiiqada jacaylkii gabbood falay ilaa waa gumaysiye waxaan ahay nin gacan galay wacdaawa loogigay wacdaawa loogigay garna weli kamaan helin garna weli kamaan helin waxaan guud ka saartaa eedaanan weli gelin wana raali geliyaa falina la kala goye garna weli kamaan helin garna weli kamaan helin waxaan guud ka saartaa eedaanan weli gelin wana raali geliyaa falinaan la kala goye wuxuu ku leeyahay abwaankii ama fanaankiiba inkastay gaf badan tahay inkasta iyaduba khaladaadkeedu aad u badan yahay hadalkeedu gudan yahay gudinta waa taqaana wax lagu jaro dhintay wax walba lagu jaro hadalkeeduna gudan yahay meel ay goyso daran tahay yani marka dhirta lagu jarayo waa tan meel adag bay goysaa marka gudinta ay wadato ama filimka ama arrinta ay wadataaba meeshay goyso waa meel aad u adag gubashana u badan tahay yani meel waa ololaya qofkii waa dhibtoonaya qof jecel laakiin markay gudun la gasho ama qalbigii way isku daydo inay burburiso ama qalbigii ka takhalusto qofka kale ee jeclay ay beenna u sheegi jirtay waxaa dhici karta inuu ninkii dee gubto ama uu dee dareen kala dareemo
ma jiraan waxaan galay ee waa haygu garan laabtoo sidaa wuxuu ku leeyahay marka aan dembiga o dhan u sheego khaladkii o dhan waka giririxda isku soo tiraayo way soo qaylisaa maaniga waxaan samay maaniga maxay ka wadaa marka kelmadda waxay ka wadaa ma jiraan waxaan galay ee waa haygu garan ka galgalo xaqiiqda yani waa maxay wax isla waalasaba gebigeedaba wixii dhacay ay samsamay daahii bay saaraysaa ama wad qarinaysaa ka galgalo xaqiiqda jacaylkii gabood falay yani qofkii jacaylkii gabood helay ama gabood falayba ileen waa gumaysiye yani qofkii qoftaa jeclaaday ee helayba ileen waa gumaysiye waxaan ahay nin gacan galay oo iyad u gacan gashay oo cadaawo loo gigay cadaawo looba dhiibay ama hadigo ama hadilo marka jacaylkii qoftaa wuxuu ka soo qaaday qof cadow loo dhiibayba uu dilay waa googooyey marka wuxuu ku leeyahay macnaha meesha ku jira qoftii marka wax u sheego ay iswaasho maxay isla waalasaa waa haygu garan ka galgalo xaqiiqdii heestan yaan loo fahmin qalad 85% ama 90% dadku waa siday u fahmeen ama u macnaysteen wixii kale ee abwaanku u turjumay isaga ayaynu dib ka weydiin doonaa laakiin macnaha markaad heesta dhegaysato markiiba waxaa kusoo gelaya dareenkan ah haygu garan ka galgalo xaqiiqdii waa heestii beengo lagu daday ama nin gacan galay intaynu barnaamijkan barnaamij la mid ah ama heestan hees la mid ah oo weliba dee rag iyo dumar ma wada taagano dumarka oo adugu de rag iyo dumar wada tilmaamaysa intaynu soo qaadan doono waa anigoo ah cawil cismaan jaamac cawil cagaare waxaan idin kaga tegayaa sidaa iyo heestii iyo beengo lagu daday